Habfakarka qofku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha jiheeya awooddiisa iyo kartidiisa. Haddii habfakarkaagu noqdo mid aan ka turjumayn waxa ay naftaadu doonayso, waxaad ku sugan tahay xaalad halis ah oo aad u baahan tahay inaad si dhaqso ah uga baxdo. Duruufaha nolosha ee nagu xeeran waxay nagu riixaan inaan noqonno kuwo isdhiiba oo ka quusta isbeddel. Ma maqashay weli qof dhahaya fursad ma jirto, shaqo lama helayo, iyo waxaan sugayaa waqtigii ku habboonaa? Habfakarkaasi ama qaabkan qarsoon ee quusta ah waa dilaaga aamusan ee burburiya guud ahaan kartidii dhallinyarada. Maanta barnaamijkan waxaan uga hadli doonnaa xaqiiqada habfakarkaasi ah keliya inuusan ahayn mid caafimaad darro horseeda ee xitaa uu yahay mid halis badan. Cilmi nafsigu wuxuu muujinayaa in marka dadku ay joogteeyaan inay naftooda u sheegaan in aysan rajo jirin, inay bilaabaan inay aaminaan. Sida laga soo xigtay daraasado badan oo la sameeyey, dadku marka ay dareemaan inaysan maamuli karin xaaladahooda, inay joojiyaan isku dayga xitaa haddii ay fursaduhu hortooda yimaadaan. Dhallinyarada ku nool habfakarkaasi caadiyan waxa ay ka dhex baxaan bulshada, waxay joojiyaan inay shaqooyin raadsadaan ama wax bartaan. Waxaa suuragala inay bilaabaan balwado xunxun iyo xitaa dembiyo. Taasina macnaheedu maahan inaysan jirin fursado, waa in ay iyagu aamineen middaasi. Laakiin ayadoo dadkaasi ay weli ku jiraan sugidda isbeddel aysan ogeyn xilliguu imaanayo, haddana waxaa jira kuwo kale oo shaqaynaya. Isla deegaanka ay ku nool yihiin, ha noqoto magaalo yar, mid weyn, ama xero qaxooti, waxaa jira dhallinyar bilaabay ganacsiyo yaryar, iyo kuwo waxbartay, iyo kuwo kale oo dadku u adeega, oo dhisaya xiriiro bulsho. Ma sugayaan waqtiga ku habboon ee waxay ku bilaabaan waxay markaasi awoodaan. Malcolm Gladwell ayaa buuggiisa Outliers wuxuu uga hadlay in guushu ay caadiyan gaaraan kuwa aan sugin, laakiin abuura fursado, ayagoo isku daya samaynaya, kuwaasoo guuldarro kasta oo ku dhacda aan istaagin ilaa ay ka guulaystaan. Farqiga ma ahan dhaqaale ama nasiib, ee waa dadaal iyo habfakarka togan. Diinteenna Islaamku ma oggola in qofka Muslimka ahi isdhiibo ama quusto. Eebbe waxa uu ku yidhi suuradda Az-Zumar, isaga oo la hadlayay addoommadiisa marka ay dembi galaan: ha ka quusanina naxariista Eebbe, Ilaahay dembi oo dhan waa uu dhaafaa. Aayaddan keliya kama hadlaysa cafiska, ee xitaa waxay ka hadlaysaa nolol kasta oo adag oo qofka soo wajahda, inuusan ka quusan naxariista Eebbe. Nabigeenna Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, wuxuu dhiirigelin jiray in qofka Muslimka uusan marna quusan. Waxaa xusid mudan xadiiska uu nebigu ku yidhi: haddii saacadda qiyaamo ay dhacayso, midkiinna uu gacanta ku hayo dhir uu beeri rabay, ha beero. Xitaa haddii ay xaaladuhu adag yihiin, qofka Muslimka waxaa laga doonayaa ficil, waxba ma sugo mana quusto. Quustu ma ahan xaqiiqo, waa baaq ka imaanaya shaydaan oo doonaya inuu kaa joojiyo inaad aragto kartidaada. Waqtiga laga yaabo inaad sugayso ma ahan mid imaanaya. Waxaa lagaa doonayaa inaad adiga abuurto. Hareerahaaga eeg, imise qof oo aad taqaano ayaa wax badan sameeyey ayaga oo aan waxba haysan ama wax yar haysta. Taasi waxay ku tusaysaa in caqabaddu aysan ahayn waxa hareerahaaga ka socda, balse ay tahay waxa gudahaaga ku jira. Maanta naftaada la xisaabtan oo jooji sugitaanka. Xilliyada adag way dhammaanayaan, maalmaha wanaagsanna way imaan doonaan, laakiin ha rajo dhigin. Aan niyad jabka ama quusta ku bedelno inaan noqonno dhalinyaro waxqabad leh, rajo leh, allana ku xiran. Mahadsanidin.